السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولاشين ملك حسن محمد ملك استودونك أدك جوجتان عافيمادي برواقة كن ولاضة انت حنوصا إلهي سبحانه وتعالى عافيه انت عافيماد قبتني إلهي سبحانه وتعالى أوسيادي ما انتو حايدين وضع قصير أو آد مرقو الله وحيكو دعدي قبر صوماليات gabadhan waxaa markeedii ugu horeeyay soo doontaynin ninkaasoo ay waalidiinteeda ku dareen muddo badan markay isla joogeen waxay u dhashay wiil wax badan kadib way kala tageen gabadhii ninkii way kala tageen kadib nin kale guursatay muddo markay ka soo wareegatay haddana waxay u dhashay wiil kale gabadhii haddana ninkii way kala tageen gabadhaas aad ayay ugu murugootay mar walba mustaqbalkeedii oo ka naqanayo mustaqbal fashilan waxaas dhanna ayada sabab u ahayd sida ay qasidan ku soo sheegtay gabadhan oo waxay lahayd waxaan raadinayay qof yacni wax walba fahmayo sida qof wax loo sheego qof wax walba fahmayo yacni dadka badanaa waxay isticmaalaan ama ay daawadaan aflaanta filmaanta yacni atooraha sida uu yahay atirishada camal aabaraadinay taagantahay gabadhan adiga ugu dambeyn gabadhii murugo badan kadib ninkii wiilka hore u dhashay ayaa wuxuu go'aan ku gaaray inuu wiilkii ka qaato gabadhaas aad ayay ugu murugootay wayna ku dhibaatootay midaasayto wax badan samir badan ay sameysay kadib wiilkeedii waa la qaatay gabadhan waxay leedahay tareen dheer soo maray nolosha waxyaabo badan ayaan ka soo arkay haddana isbedel weyn ayaa igu imaaday waxyaabo aan u samri jirin ayaa hadda dad oo waxba naga dhaxaynin oo qaraabo kor aan ahay aan ugu samraa anigoo ku soo samri waayay gurigeygii waxay halkan baaq ugu diraysaa gabdhaha Soomaaliyeed ay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala mustaqbal wanaagsan siiyay inay mustaqbalkooda xajistaan ilmahoodana ay u samraan intii ilmahooda bari iyo koofar loo kala dili lahaa inay u samraan ilmahooda dartoodana ay mustaqbalkooda u dhistaan ay ilmahaas u samraan waayo ninka ragga ah sidiisaba waxba kama halaawaan haddii 100 cunug oo dhalay 100kaas cunug qof uu dhiibanayaa biilkaas uu tuuranaa hadhowna kale iska guursanayaa laakiin waxa dayacmaya waa ilmahaaga abaayo mar walba waxaan ku leeyahay oo gabadhaasna ay baaq kugu soo jeedisay inaad ilmihiina u samirtaan guriyihiina aad xajisataan halkaas ayaan ugu sii baxayaa qisada quruxda badneed والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.